السلام عليكم. قصدنا ما أنتم عم كسو قادنا بقت نصر بقرك أفراد سومري الدنك بقركاني وبقرك أفراد الدنك سومري حكوا زي سدح كله النبي صلى الله عليه وسلم نوشجي دنك واحد سومرتي أفر بقر لون واحد عين مسلمين لون واحد عين قالوا لون مسلمين توحي عين نبي سليمان عليه السلام يدل قرنين لون قالوا واحد عين نمرود لعنة الله عليه يبقت نصر أدوما أنت وحنسوق ولا سندنا قصدي كسب سنة بقت نصر وحول الشيء اللي حب قصدنا سنة كهر تاريخ الميلادي وتاريخ هذا نو مرة سلامو كل تنزده كهر اللي حب بقول يصدن أي كذا يودشي وحنا دلي بقر كوي تونات إسوم مرة برتويدا بابل عن أمي عيسى لورنجري عملوا شيء نول براس سيدو كله أو يدي لما أقولن عيالي وحو كقبي كذا سوماليا وتقانو بتبصروا لكن بقت نصر وحو كصعب حي أو وصل حب حي أبيه علمي ودلي تجو هاي دجاليها عجيب تداس أيونا كل نقضي جاميها عيدا كبابل بقرتويدا بابل ومركا معمولة بقت نصر أبيسة waxa ay hoostiga jirtay boqortooyada lagu magacaabo Ashuriya oo ka dhisneed caasimada Naynaw waqta Nasr iyo abihi Nulbras waxay go'aan ku gaareen in ay baabiyaan boqortooyada Ashuriya sidii ayna ku baabiyeen boqortooyadii Ashuriya sidoo kale waxa jirtay boqortooyo ka awood badneed boqortooyada ay baabiyeen waqta Nasr iyo abihi boqortooyadaas waxay ka dhisneed Masar qorka maamuli jirnay waxa la oran jiray Nakhawa wuxuu islaayay garab istaag boqortooyada Ashuriya oo maanta la ciirsanayo ama lagu baabiyay meesheeda dagaal ayuu soo qaaday markuu soo qaaday dagaalkiina asina sidoo kale waa lagu daray in hawdiisa la kiciyay intaas kadib waqta Nasr iyo abihiisa sidaas ay markaa ku hantiyeen ama ku milkiyeen adduunka dadka saaran in ay maamulaan ama gumeystaan maalmo kadib waxa geeriyooday abihii waqta Nasr ee Nulbras waqta Nasr wuxuu noqday boqorka adduunka qarax ka soo baxa iyo qarax u dhaca ee asiga hoos timaado intaas kadib Baytul Maqdis waxa ay haystay Yahuuda ama Nasaarada waxay ahaayeen kuwa wax walba oo xun ku tartama waxayna dileen nabigii Ilaahay u soo diray wuxuuna ahaa nabiyullaahi Yaxya ibn Zakariya waqta Nasr markii arintaasi loo sheegay ciidan ayuu u diray reer bani Israa'iil cagta ayaa la mariyay culimada taariikhyahanada waxay yiraahdaan Allah ayaa ku saliday maxaa yeelay gaal ayuu ahaa muusan ka damqanin dilka loo geystay nabiga daba taariikhda waqta Nasr halkaas ayaan ku soo gabagabeynaa insha Allah taakisheen waxaan idinka codsanayaa inaad like saartiin sidoo kale page-ka follow gareysaan intaan qisada xigta insha Allah ka kulmeeno waxay idin leeyahay sidaas inoo geliyo